السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ونكسن تاوديال كسو دوادا channelka Sooyaalka Media qodobadeenna ugu waaweyn maanta waxa ay kala yihiin waxa xalay ka dhaqan galay magaalada Muqdisho bandowga ee dowladda Soomaaliya ku soo rogtay dowladda federaalka oo shalay xaqiijisay in magaalada Muqdisho ay dadka lagu gooriyeen coronavirus oo badan oo kalena laga helay xiisada ka dhaxo hoggaan Musabbix iyo odayaasha dhaqanka ee midnimada Soomaaliya oo ka sii dartay dhankaasi wararka caalamkan waxa kamid ah israsaasin xooggan oo ka dhacday Qaahira magacaygu waa Maslax Nasiib fadlan haddaan wax soo channelkan subscribe inoo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo maadsan haatan ku soo dhawaad warka faahfaahsan waxa magaalada Muqdisho xalay ka dhaqan galay bandowga ee dowladda Soomaaliya ku soo rogtay waxaana qaybo badan oo kamid ah caasimadda ka dhaqan galay bandowga bilaabanayay 8 Fiidnimo ee xalay inta badan waxa la xiray goobihii ganacsiga ee ku yaal Muqdisho marka laga reebo goobaha lagu iibiyo raashinka qalalan iyo xarumaha caafimaadka waxaana sidoo kale guryahooda ku xarooday inta badan dadka shacabka ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa lagu arkayay laamida magaalada Muqdisho ciidamadan ayaa dadka iyo ganacsatada ku qasbay inay guryahooda ku xaroodaan waxaana sidoo kale joogsaday isku socodka gaadiidka shacabka magaalada dhexdeeda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeer ku sameeyay qayb badan oo kamid ah magaalada Muqdisho si ay u ogaadaan sida uu dhaqan galay bandowga xalay bilowday bandowgan lagu soo rogay magaalada Muqdisho ayaa bilaabanayay 8 Fiidnimo waxa uu ka eegayay 5 subaxnimo waxaana bandowgan la soo rogay si loo yareeyo coronavirus ee ku sii faafaya Muqdisho iyadoo looga xilliga qaadi doono bandowgan dowladda Soomaaliya ayaa xalay xaqiijisay inay gooriyeen 3 qof oo kamid ah dadkii gudaha dalka ku haleelay cudurka COVID-19 waxayna gaartay tirada guud dhimashada 5 qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliyeed Wasiir Abikar Nuur ayaa warbixinteeda maalinlaha ee arrimaha COVID-19 ku sheegtay in sidoo kale xalay la diiwaangeliyay 20 xaaladood oo cusub wasiirka caafimaadka Wasiir Abikar Nuur ayaa markale dalbatay in bulshada ay si sax u qaataan talooyinka caafimaad kuwaas oo ay sheegtay in qofka ay ka kaalmeyn karaan inuu ka badbaado coronavirus ugu dambeyntii waxay sheegtay wasiir Fawziya inay dadaal xoog leh ugu jiraan sidii loo xakameyn lahaa cudurka COVID-19 oo haatan u muuqdo mid si xoog leh bulshada ugu sii dhaafaya Sultan Umar Sultan Maxamed Faarax oo kamid ah salaadiinta Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka soo kala dhaxgalay odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha Somaliland Musabbix ee salka ku haya midnimada ummadda Soomaaliyeed Sultan Umar ayaa si weyn u maagay madaxweyne Bixi isagoona sheegay in madaxweynaha aysan islayn hadallada ku hadlo iyo waxyaabaha uu fuliyo maadaama uu si hoose ula kulmay madaxweynaha Soomaaliya xilli uu bulshada reer Somaliland u sheegay inay ku garnaqsadaan fagaare caalami ah oo loo dhan yahay suldaanka ayaa sidoo kale waxa wax lagu xumaado ku tilmaamay in qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ay dhaafaan xayndaabkooda iyagoo ku gudbay sida uu sheegay xuduudka Somaliland ilaa ay ku baaqayeen midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo in laga qayb galiyo wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya odayaasha dhaqanka Somaliland ayaa u muuqda kuwo kala jabay laba garab oo midkood uu rabo in dib loo soo nooleeyo midnimada Soomaaliya halka kuwa kalena ay weli ku dhagan yihiin goonistaagga Somaliland oo muddo 30 sano la baadgoobay sarkaal ka tirsan booliska iyo 7 tuunsan yahay inay yihiin mitiin ayaa habeenkii Talaadadii lagu dilay israsaasin dhaxmartay kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ay heshay xogta weerar la rabay in lagu qaado Kirishtaanka kaniisadda Coptic sida wasaaraddu sheegtay wasaaradda ay intaas ku dartay in 3 boolis oo kale lagu dhaawacay iskahorimaadka bayaankan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in akhbaarta ay heshay muujinaysa in koox takfiir ah oo ku sugan bariga magaalada Qaahira ay qorsheynayeen in howlgallo argagixis ee lagu beegsado Kirishtaanka Coptic inta lagu guda jiro toddobaadka u dabaaldegaan ciidda Easter Sunday Masar ayaa ereyga takfiirka u adeegsato inay ku qeexdo mintiinta islaamiga ah ee dalkaasi hub iyo israsaasin ayaa laga helay goobta uu iskahorimaadka ka dhacay sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dacwadoogaha Masar ayaa sheegay in koox baarayaal ah loo diray goobta uu iskahorimaadka ka dhacay oo ku taalo degmada Al-Amariya ee magaalada caasimadda ah guud ahaan intaas ku soo gabagabeynaa wararkeena warkan warkiinta kulmi doono aniga Maslax Nasiib sidaas iyo amaana Allah